gudaha degmada Jilib mid ka mid ah howlgaladii ugu qiimaha sarreeyay ayaa ka dhacay iyadoo howlgalkaasi ay si wada jir u fulinayeen geesiyaasha ciidanka Commandoska Danab iyo ciidanka nabad sugidda Jubbaland ee Gaashaan. Howlgalkan ayaa lagu dilay 15 dhagar qabe halka 8 kalena gacanta lagu dhigay. Howlgalka oo la fuliyay xilli habeenkii ayaa muujiyay kororka awoodda howlgal ee ciidamada xoogga dalka gaar ahaan adeegsiga gaadiidka cirka si loo ballaariyo howlgalada laguna gaaro cadowga goob kasta iyo waqti kastaba. Howlgalkan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee noociisa laga fuliyay gudaha degmada Jilib. Degmada Jilib muddo dheer khawaarijta waxay u ahayd xarun bardhexaad oo ay keensadaan maxastooda haweenkooda iyo amiiradooda. Sidoo kale xarun waxay ahayd ay ku shaqeeyaan xubnahooda sarsare. Weerarkan ciidanka Commandoska Danab ay ku galeen degmadan iyagoo oo adeegsanaya gaadiidkooda iyo lugta waxay khawaarijta u tahay gabal u dhacay iyo inayna u harin goob dambe ay kaga sii sugnaadaan gobolada Jubbooyinka. iyadoo xusid mudan tahay toddobaadadii la soo dhaafay howlgallo ballaaran oo ciidanka Danab iyo kuwa Jubbaland ay fuliyeen in degmada Jamaame iyadana ay sidoo kale khawaarijta uga nadiifiyeen ugu dambeynna ay ku guuleysteen in khawaarijta ay ka barakacaan degmada Jamaame iyo deegaamada ku hareeraysan oo ay u soo barakaceen degmadan Jilib. howlgalkanina waxa uu yimid kadib markii khawaarijtii ku sugnay degmada Jamaame ay isugu soo biyo shubteen inay fadhiisin ka dhigtaan degmada Jilib. ciidanka Commandoska Danab waxay markastaba u taagan yihiin difaacidda dalkooda iyadoo howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidanka Danab ay ka fuliyeen gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinkuba ay muujiyeen awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka Commandoska Danab iyo sida marraba khawaarijtu ayna gabaad u helaynin. fadlan ugu garab istaag la dagaalanka argagixisada nagala soo xidhiir lambarka gaaban ee 575 xogtaadu waxay noqonaysaa ammaan. fadlan nala shaqeey noo soo gudbi xogta khawaarijta haddaad adigu ka mid tahayna nala soo xidhiir. maxamed dayib, warbaahinta codka ciidanka Commandoska Danab, Jubbada Hoose.